gudoomiyaha xusbiga mucaaradka ee wadane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cabdiraxmaan Ciro ana musharaxa xusbigaasi iyo wafdi ballaaran oo hogaaminayo oo toddobaadadii ugu dambeeyay kormeer ku gala bixinay gobolada bariga Jamhuuriyadda Soomaaliland una kuurgalayay habsami u socodka qaadashada kaarka codbixinta doorashada ayaa xalay fiidnimadii hore si diiran loogu soo dhaweeyay degmada Garadag ee galbeedka gobolka Sanaag iyadoo aan dadweynaha reer Garadag ku kala harin soo dhaweyntiisa ayaa waxa kaga hortagay deegaanka Fadhigaab oo masaafo ahaan ka xiga dhinaca bari 30 kiiloomitir degmada Garadag kumanaan kamida taageerayaasha xusbigaasi oo lug iyo gaadiid bale ruuxayna caleemo qoyan iyo calanka ugu caanka ku yahay xusbigaasi kuna dhawaaqayay erayo ay ku taageerayaan musharaxa xusbigaasi waxana loo soo galbiyay musharaxa iyo waftigiisa dhinaca degmada Garadag markuu soo gaaray gudaha degmada Garadagna waxa lagu soo dhaweeyay goob fagaara halkaas oo munaasabadu ka dhacay ugu horeyntiina waxa halkaasi hadal soo dhaweyna ka soo jeediyay gudoomiyaha xusbiga mucaaradka ee wadani ee degmada Garadag Cabdisahal Jaamac Xasan xildhibaan Aadan Xaaji Axmed iyo waliba xildhibaan Cilmi Bood oo kamid ah xildhibaanada golaha deegaanka kana soo digarogtay xusbiga talada dalka haya ee kulmiye iyo waliba oday Aadan Cawad iyo Maxamed Daahir Barre oo kamid ah odayaasha culculis ee degmadaasi qurba joog iyo xubno kale oo aad u tiro badan kuwaas oo gebi ahaantoodba sheegay inay hil iyo hoob la garab taagan yihiin xusbiga mucaaradka ee wadani waxana hadaladoodii kamid ahaa reer Garadag gudoomiye maanta way codeeyeen waa kuwii reer Argaabo hore codeeyeen reer Garadag maanta way codeeyeen waxa inoo hadhay intii kaararka qaadatayna ha qaadato inta kaararku u dhiman yihiinna waxaan aad iyo aad idinka codsanaynaa kaararkiina inaad qaadataan si aad u samaysaan isbedel khayr qaba si aad u samaysaan la iskaba kiin caashiqiin oo wadani laba caashiqiin markii dheydhay badan ay samaystay deegaag ayay dacmeen tijaabadii hore way arkeen bal tijaabo labaad inay la galaan ee ka soo baxay waxaanu taageeradayadii iyo codkayagiiba ku wareejinay xisbiga wadani 16 sanadood baanu soo taageeraynay 16 sanadood aanu soo taageeraynay waxaanu aragnay inaan wax dani ku jirin dabeedna waxaanu noqonay dad isbedel doona xukun dhaama doona oo la shaqeeya ma yihiin dad hunguri soo doontay oo isla waxa la idin siiyo haddii aanu hunguri soo doonano isla anaga waxa la idin siiyo xisbi xaakimkaanu la joognayo waxa uu boobayaanu la boobi lahayn inaan noqotaan aabe iyo hooyo u noqotaan dadka Soomaaliland siiba Sanaag waayo waxa ka jirta dib abuuran dibtaasi u baabiisaan waana hooyo abo noqotaan anigoo ah Maxamed Daahir Barre waxaan ahaa gudoomiyihii ugu horeeyay xisbiga kulmiye degmada Garadag waxaan ahaa suduuhii wasaaradda caafimaadka gobolka Sanaag sidoo kale waxaan ahaa suduuha wasaaradda caafimaadka gobolka Saraar kana waxaan ahay xubin kamid ah xisbiga wadani laga bilaabo maanta waxaan ku biiray oo cududda iyo maskaxda iyo muruqaba kala shaqeynaya wadani insha Allah taala 8 sanadood degmada Garadag xusbiga kulmiye leeyado dhiigooday u shubtay mar labaad u shubi mayso wax deegaanka laga qabtay habeeraati ma jiro xusbiga qaban waayay biyo inuu dadka biyo u qodo xusbiga qaban waayay miyay idin la tahay inuu 5 sanadood dambe hadii la doorto uu qabanayo ma qabanayo intaasi kadib waqtiga gaaban awgeed ka qaatay Cabdiraxmaan Ciro waxaanu u mahad celiyay taageerayaashii halkaasi ku soo dhaweeyay intaasi kadibna waxa uu sheegay haduu ku guuleysto talada dalka inuu wax badan ka qaban doono dhinacyada horumarka amniga iyo waliba ictiraaf raadinta dalka sidoo kale wuxuu shaaciyay inuu rigbiyood ka taagi doono banka taariikhiga ee Bancade dadweynaha reer Garadagna u soo saari doono biyo macaan kaasoo ay baahi weyn u qabaan mas'uul kastana ka codsadaan balse aan wali hirgelin socdeer ku soo maray isaga iyo taageerayaashiisu shaariciyada waaweyn ee ay ka koobsato degmada Garadag intuu socodkaasi ku guda jirayna waxa uu xariga ka jaray 3 xafiis oo xusbigiisu ku yeelan doono degmada oo midaysan aad noogu soo dhaweyseen idinkoo in doorana sugayay annagoo safar dheer ku soo jiray mar labaad waa mahadsantihiin safarka iyagu gobolka Sanaag iyo gobolka Sool waxa ujeedadiisu ahayd in aanu kala qayb galno shacbiga Soomaaliland ee labadan gobol bilowga qaadashada kaararka codbixinta marka fariintaanu idiin sidnay dhammaan shacbigana u sidnaa waxa weeye inaad qaadataan kaararka codbixinta si aad hadhowto waxaan ugu yeelataan inaad codaysaan oo doorashada aad codaysaan maanta Soomaaliland codkiinu waa muhiim buu yahay waxaa noo muuqday Soomaaliland bari iyo galbeed meel kasta aanu taagno shacbiga Soomaaliland waxa ka guuxaya isbedelkaasi cid la bedelayo dawa garanaysaa waxa la bedelayaa kulmiye soo saas maaha kulmiye shacbigu soo tijaabiyay
8 sano hadda xukunkaay marka kulmiye bedelo diyaar baynu nahay insha Allah isbedel khayr qabaynu doonaynaa shacbigu wuxuu rajo ka qabaa xisbiga rajada oo xisbiga wadani waa xisbi himiladiisu tahay inuu wax ka bedelo horumar la'aanta iyo shaqo la'aanta iyo biyo la'aanta kulmiye waxaad moodaa Soomaaliland inuu quful ku xidhay oo beesha caalamka ka xidhay insha Allah waxaanu doonaynaa xisbi ahaan inaanu maanta laga bilaabo sirfay u darro in bancaada laga qodo riid biyo macaan haddii la ka dhigo faraxa cabdi nuur hoonkay TV degmada Gar Adag